بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waa salaamantiin ilaahay waa mahadle marka xigtana waxaan isku kiyeenay caawa bishu ay tahay 9 bishii afraad 2018 goor saacadu haysteedii habeenimo ciidanka booliisku waxay soo xidheen boqor Cusmaan Buurmadow boqor Cusmaan maxamed oo loo yaqaan boqor Cusmaan Buurmadow kaasi oo lagu eedeeyo inuu galay dambi qarandumis ah isagoo Puntland kaga dhawaaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah isagoo faafiyay warar been ah oo aan saleerato lahayn ciidanka booliisku markuu falka galay waxay bilaabeen baadhis aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifa sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaan la yiraahdaa warna faris ama maandada dikaturo ayaa loo soo jaray wuxuu leeyahay wuxuu ku weydiisay yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay Puntland u tagay cid u fasaxday iyo cid oo galatay midna ma jirto falkaas qarandumiskana halka uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xiriyahay waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dambiga galay halka waxa lagu digaynaa waxa weeye dambiga isaga kaligiis baa galay mas'uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi uu xiriyahay waxaana si degdeg loo gudbin doonaa xeelaalinta iyo maxkamadda awoodooda wana mutaysan doonaa hadii la ka dhigo dambiga uu galay ciqaabtiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof kastaaba sharciga qof kastoo reer Soomaaliland iyo boqor iyo sultaan iyo cid uu doonaba ahaadee midkee Faysal oo sareeyay sharciga iyo وليه هذا أرتا إيه شرعي هو لا شرعي بطل ما في عنه قضب كصدق هذا حركة قابته وحكاها الله وحلايا اللي يقولها والشرعي ولا اسمه مدحوين كحجين إلا كسبان لا توصية قف كي دم بجلا شرعي وقوانية نكر وصدان وعاد وابو قربور دم بجا عقابته قال بدي الله يستعمل القاضي تلي وحلا السعودي بقربور مدو ولا كلا السعودي أما وفتي كلا iyaga laftooda ma la xidhay mise iyaga maxaa dambiga ciqaabta qof baa gala isaga dambiga galay isaga marag muujo loo haya isaga ayaa dacweynayna isaga ayaa mas'uulka waxa loo wixii ka dhacay way afayeen magacaygu waa Peter Kosar telefishinka Ariel ayaan ka socda markii aad qabanayseen inta warna soo gaaraysa waxa la leeyahay ciidanku aad iyo xoog bay u adeegsadeen qabashada boqorka arintaas mid wax ka jira misna qofka waan baa loo soo jaray haddii booliisku xoog wax ku qabanayaan de suuqaasi ka qabsan lahayn si fi sharciga waafaqsan waa loo maray maxkamaddii waa laga soo jaray waa faris waa la soo qabtay isagoo nabad qabo xidhay yahay maxkamadda la horgeyn doonaa indhihiina la ku arki doontaan de si yahay